baahida loo qabo saxaafad dabagal sameysay Soomaalida. Warfaafinta dunida maanta waxay tahay udub dhaxaad aan la'aanteeda waxba kala socon karin. Dadkuna haddii aysan haysan lahayn warbaahin waxay weylahayeen xogta joogtada ah ee haatan warbaahinta ay la wadaagto, iyaga oo noqon lahaa kuwa waxba ogeyn haddii xogtaasi aysan jir lahayn. Qofka xogta uu ka haysto deegaankiisa iyo dunidiisa ayaa suurageliya inuu si habsami leh howlihiisa u maamulo, noloshiisana u qorsheysto oo uu ku talagoosto tagtado taaganka iyo timaadada. Dhanka kale saxaafadda waa awood ka mid ah awoodaha qaranka uu ku dhisan yahay, waayo waxay ilaalisaa cid walba oo ku xadgudbi lahayd qofka muwaadinka dalkiisa iyo dadkiisa intaba, si la mid ah sida biliiska iyo garsoorka looga cabsado kale. sidaa darteed maanta ma jirto ummad dhisnaan karta warbaahin la'aan. Qofka dunida iyo bulshada la qabsan karana ma jiro oo aan helin xogta saxaafadda ay bixiso. haddaba waxaa dhab ah meelaha ay Soomaalida ka curyaantay oo dib u dhac xoogan ku jira waxaa ka mid ah waxaa aragnaa telefishinno, idaacado, wargeyso iyo social media ama baraha bulshada oo waxyaabo badan ka hadlaya. kuwaasaa kasoo sheekeynay waxa ay isku tilmaamaan warbaahinta Soomaalida ee runta iyo xaqiiqda ka hadasha. inta badan waxaa aad u yar heerarka waxbarasho ee saxafiyiinta howlahaasi warbaahinta Soomaalida qabta. baahida ugu weyn ee laga dareemayo daciifnimada iyo tayaxumada warbaahinta Soomaalida waxaa ugu horeeya qaybta loo yaqaano warbixinada dabagalka ah ama investigation reporting. dalkeena waxaa si joogto ah ugu dhaca jariimo waaweyn oo siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulshadeed, mid deegaan iyo mid khiyaano qaran iyo mid sharciga la dhigtay oo qof kasta uu ku tunto. dulmi iyo ku tubasho dadka tabarta yarna ee u sii dheer tahay oo xuquuqdooda la duusiyo waxyaabo la mid ah. laakiin nasiib xumo waxaas oo dhan ma jirto cid si habeesan usoo diyaarisa soona tabisa oo ka hadasha arrimahaasi. sababta warbaahinta looga waayay qaybta saxaafadda dabagalka ee muhiimka ah waxaa la dhihi karaa ilaa 3 meelood oo liita aawadeed, sida dad badan ay qabaan. waa midda kuwa aqoon saxaafadeed ee hawsha lagu qaban lahaa oo aad u yar. tan labaad oo ah awood yari dhaqaale iyo mid agab oo saxaafadda ama suxufiyiinta haysata. midda saddexaadna waa xorriyadda ama xorriyad la'aan iyo sharci ku tumasho ka jira dhulka Soomaalida, cabsi gelisa saxafiga isla markaana awoodaha la rabo inuu dabagal ku sameeyo xilli kasta ay gacanta ku dhigi karaan isla markaana ay isaga nolosha dhaafsiin karaan. dabagalka xogaha iyo soo tebinta arrimaha dhibaatooyinka dahsoon waxay wax badan ka bedeli lahayd kuwa mujrimiinta ah ee haatan ka warhaya inaysan jirin cid la xisaabtamaysa ama saxaafad dabagal ku haysa oo banaanka soo dhigayso jariimooyinka iyo dhibaatooyinka ay geystaan geega dalka Soomaaliya. aynu ku noqono xilka warbaahinta iyo waxa looga baahan yahay buug caan ah oo saxaafadda aad marjac ugu dhigato. ciwaankiisna waxa uu yahay The Elements of Journalism, waxaana qoray Bill Kovach iyo sidoo kale Tom Rosenell. 9 tiir oo xeer ah ayayna suxufinimada habboon iyo warbaahinta ay ku soo xusheen. 9 tiir ee udub dhaxaadka ugu dhigeen saxaafadda waxaa ka mid ah 1 run sheegid, 2 dadweynaha oo aad dhankiisa xigsato, 3 habsami iyo hubin, 4 in laga madax banaan yahay cidda dabagalka lagu sameynayo, 5 in aad iska dhigto inaad tahay indho si xor ah u haya dadka awoodda leh, 6 dadka in aad fursad u siiso warbixintan in la naqdin karo, 7 in aad ku dadaasho masalada muhiimka ah in muhiimadeeda muuqato, 8 xogtu inay si guud uga hadasho ama masalada u wada daboosho isna haysato, 9 suxufiga inuu damiirkiisa adeegsado. Richard Cookson oo ah nin ku xeel dheer aqoonta saxaafadda dhinaceeda dabagalka ama investigation reporting ayaa waxa uu qaban jiray barnaamij noocaas ah oo BBC-da ay soo deen jirtay. waxaana uu sheegayaa haddii aad doonaysid in aad dunida wax ka bedesho waxaa kugu filan oo kaliya qalin, warqad iyo maskax fayow. intaas baadna ku ridi kartaa madaxda faasidka ah oo ku kashifi kartaa shirkadaha xadgudubka ku haya bulshada adduunka. mar kale waxa uu yiri warbaahinta dabagalka ahi asalkaba waa inay ka tarjumaysaa oo kaliya danta caamka ah. taa waxaa tusaale u dhigtay wacadka ay dhigteen suxufiyiinta oo qodobadani ugu dooran yihiin. haddaba qodobada uu sheegay waxaa ka mid ah in la qaawinayo jariimada iyo xadgudubyada oo markaasi daaha laga feedayo, 2 in la ilaalinayo dabagalyada iyo caafimaadka guud, 3 in dadweynaha laga difaacayo dhibaato kasoo lagu kacayo iyo cidda beenta u sheegayso. Richard Cookson waxa aan ka baranay waxa ka mid ah murti oday hore uu ka soo xigtay oo dhahaysa haddii ay mas'uuliyadda saxafiga tahay in xog soo tabiyo isla isaga ay saaran tahay xogta runnimadeeda inuu soo xaqiijiyo.
waxa uu tusaale usoo qaatay haddii laba nin aa guri ku dhex wareysanayso uu midna dhaho roob ayaa banaan ka da'aya halka kan kalena uu dhaho waxaa jirta qorax, adiga ayaa laga rabaa in aad kacdo oo daaqada hoos ama banaanka u baxdo isla markaana kadibna aad sii raadiso kii beenta sheegaya sababta ku kaliftay beentaasi uu sheegay. waa dhab suxufiyiinta Soomaalida in haystaan duruufihii badnaa aynu bilowga ka soo sheegnay.